السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كلنتي وعن رمضان كريم أيان إذن لأنهاي ومالنتي لباد رمضان كأود أفرتين أنا قولي ما أنا نفرين ما شاء الله كسو دوادا channel كيجي شاعية ونشو يوليبا صاحبتنا الشاعية وحن مانتا إذن هيا شيكو جعيلة oo lana soo wadaagay wiil iyo gabar marka gabadhii ayaa waxayna weydiisanaysaa in aan ra'yi aan siino insha Allah sheekada jacaylka gabdhaha wiilkaas iyo gabadha magacyadoodii waan qarinaynaa sababo ma aragtay information koodii sirtoodii saan u qarino adigana hadaad sir haysid insha Allah waad ii soo sheegi kartaa meesha la igala soo xiriirayana gmail-kan waan ku soo sheegi doonaa insha Allah iyo waliba lambarka aad igala soo xiriiri kartid wiilkan iyo gabadhan waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho gabadha ayaa inoo sheekeynaysa waxay tiri waxaan aad u jeclaa wiilkan waxaan wada soconay muddo 3 sano ayaan wada soconay waxaan isla dhiganay high school ka ayaan isla dhiganay iskuulkii ayaan wada dhameynay balanteenu waxay ahayd markaan iskuulka aan wada dhameyno in aan jaamacadda aan wada aadno aan wada dhameysano xiriirkii jacaylkana uu sida inoogu socdo marka waxay tiri intaanan jaamacaddii u gudbin sababo dhaqaale awgeed anigii ayaa jaamacaddii u gudbi waayay tiri isagiina jaamacaddii ayuu bilaabay isaga hadda jaamacaddii ayuu dhigtaa ayay tiri marka waxay tiri wiilkan aad baan u jeclahay dadkana waan ka dhaweystaa qalbigeygii la'aantiisa marnaba ma harsado habeenkii anoon la hadlin ma seexday tiri aan markaan soo kacana cid kale anoon wicin ayaan isaga wacaa ka wareystaa caafimaadkiisa wuxuu igu abuuray jacayl aan caadi ahayn isagana waxa uu ii qabaa jacayl aan caadi ahayn labadeynaba midba midka kala daran weeyaan waxa mar walbaba daqiiqad walbaba isoo wacaa daqiiqad walbana waan wacaa fariin ayuu ii soo diraa fariin ayaan u soo diraa si aan marba aan iskula wareysano xaalka meesha uu marayo goobaha dadweynaha ayaan isla aadnaa sida xeebta Liido sida ma aragtay beerta nabadda sawiraan ayaan wada galnaa mar walbana waqtiga inaan wada qaadano ayaan jecelnahay sida sheekadu sida u sii socotay wiilkii ayaa go'aansaday in aan is aroosno waxa uu go'aansaday arooskii anigana waan ka aqbalay in aan aqal galno maadaama in muddo jacayl uu inaga dhaxeeyay anigana aan baqabin in nin kale adduunkan uu ku nool yahay balse waxay tiri gabadhan xaalka waxa uu xumaaday marka wiilka uu ciideeni iga soo doontay reerkii marka la soo doontay aqyaartiisa timaaday wiilkii ayaa la diiday in aniga ay arooso nama soo galayo oo kale waxaan wareystay waalidiinteedii waxa ay wiilka ay ku diidayaan ayay tiri gabadhan wiilkii waxa la yiri nasab dhiman miya ayay tiri maya waaye nin aan tukanaynin miya maya weeyaan nin aan soomeynin oo salaadeynin miya maya maxaa ku diideen waay waalidiintii waxay ku yiraahdeen maya kulama rabno waxaan la kula doonaynaa wiilka adeerkaagii uu dhalay ee hebel ee ku nool wadan hebel inuu ku guursado kaas ayaa go'aan lagu gaaray marka wiilkan fursad iyo boos halkaan ugama banaana gabadhii waxay tiri hadalkii markaan maqlay ayaa nafba iigu dambeysay macnaha waxay ka wadaa waan sooxay dhulka ayay ku dhacday isbitaalka ayaa la cararay ee Madiina isbitaal Madiina ayay waxay ku jirtay 5 maalmood kadibna waa laga soo saaray iyadoo oo aan caadi ahayn wiilkii arinkii ayuu maqlay isagana sidoo kale xanuun fara badan ayuu dareemay waxaana uu ka sii xanuunsaday markii la yiri gabadhii sarjooga ayay ka dhacday wiilkii asoo arinka la yaaban iyo gabadhii ayadana xanuunsan oo guriga joogta ayaa mar walbaba waxa ay sheegtay in ay cuntadii ka gooday ay ka soontay sidoo kalena xitaa biyihii xataa aysan cabaynin mar walbana niyadda ay ku hayso saaxiibkeeda xanuun fara badan ayay dareemaysaa qalbiga ayaan ka jabay tiri waalidiintiina waxay taagan yihiin wiilka adeerka ma ahane wiil kale laguma hayo waa ay wareertay gabadhii maskax xanuun iyo waliba qalbi jab aad u xoogan ayaa la soo dirsay gabadhii waxay ii sheegtay in xitaa wiilka isagana uu xanuunsaday oo cuntadii isagana ka soomay oo cunto cuni waayay sababo jira awgeed gabadhii waxa ay samayso ma garanayso waayo waxa meesha yaala hadalkii iyo go'aanadii waalidiinta hadalkii ayaa mar walba ku soo noqonaya ay waalidiinteedii ku yiraahdeen
gabadhii iyo wiilkii way kulmaan oo way wada sheekaystaan. marka ay ayaga wada joogaan si aan caadi ahayn ayay cunto u cunaan, way cabaan, way cunaan, hadalkoodii farxadoodii waa caadi. marka ay kala tagaan ay guryahoodii ku laabtaan, gabadha waxay tidhi dadkaba dadkayga ma ahan, qaraabada qaraabadeydii ma ahan, ehelkana ehelkaygii ma ahan, gurigana gurigaygii ma ahan. wax walbaba waxay leeyihiin meel cusub, qaab kale ah oo aan ku faraxsanayn. waxay tidhi mar aan guriga ku jiro cunto aan karinayo haddaad aragto waa anoo cuntadii xataa aan haleeyey. waxaa haatan la iga joojiyey inaan guriga xataa cunto u sameeyo, maadaama wax kasta oo la ii diro aan halaynayo. igamana aha ayay tidhi haleynta aan raashinka halaynayo in aan xasidnimo u halaynayo, balse waxay tidhi maba u hayaba war. marka gabadhan waxa ay leedahay wiilkana wuu dhiban yahay, anigana waan dhibanahay, waalidiintana halka ayay taagan yihiin. waxaan rajaynayaa oo wiilka uu fariin iigu soo diray tiri oo igala hadlay in ay wadanka dhan ka tagaan, ay tahriibaan, lacagta ay ku guursan lahaayeen ay ku tahriibaan, wadamada kale ay tagaan, halkaa nolol xor ah oo nolol cusub ah ay ka bilowdaan. fikirkaas ayuu ii soo jeediyey tiri. sidoo kalena waxa uu ii soo jeediyey tiri in labadoodii ay wada baxsadaan oo ay is aroosaan, is soo mehersadaan, waalidiintana loo sheego mar alla marka gabadhan uu uurka ku soo baxo, maadaama ay diideen xiriirkii tooska ahaa, doonistii tooska ahayd. gabadha ayaa markaa waxa ay leedahay oo ay nala wadaagaysaa, walaalayaalow dhibaatadaas ayaa ay haya, cid walba oo fikir iyo ra'yi isiin karta ha ila wadaagto. aniga shakhsiyan shaaci ahaan waxaan leeyahay horta waalidiinta qaarkood ma dareemayaan jacaylka meesha uu sida uu yahay. marka jacayl wiil iyo gabar ay isjeclaadaanna waa waxaan caadi ahayn oon la soo koobi karin, aan la qiyaasi karin. marka lagu yiraahdo gabar hebel baa lagu hayaa ama wiil hebel baa lagu hayaa, wiilkana ma soo galo, waxaad dareemaysaa inaad nolosha oo dhanba aad ka taklusid. waxaa mar walba ku haminaysaa in aad isdisho, wadanka aad ka tagto, ama aad qofka aad la baxsato. jacaylku waa sida, waalidiintana ma fahansana. aniga marka ra'yigaygii aan siin lahaa dadkan waxay tahay oon dhihi lahaa, walaalayaalow aniga waxaan idin dhihi lahaa horta ha tahriibina, wadanka ka bixina. diinta islaamkana wiilka iyo gabadha is aroosaya oo israba haddaysan ahayn wiil oo gaal ah oo kristan hadduusan ahayn wiil salaadiisa uusan tukanayn, hadduusan ahayn soomeynin, hadduusan ahayn oo loo diida inuu maaragtay halka uu ka wadan karo, uu maaragtay si toos ah uu gabadhii u aroosi karo ayay dhigaysaa. aniga marka waxaan dhihi lahaa iska meherso gabadhaasi, meesha maaragtay iskaga meherso. ilaahay subxaana wa tacaala wixii kheyr qaba ilaaha idin siiyo, kadibna maaragtay dee gabar la qabo oo uur ku soo baxay wax kaloo lagu sameynaa malaha sooma. aniga fikirkaygii saasaan dhihi lahaa oo maaragtay laakiin tahriib iska ilaaliya, waayo markaad tahriibtaan waxaad mushkilo u gelinaysaan nafsadiina, waxaad mushkilo gelinaysaan oo aad wareer gelinaysaan waalidiintii, qas i balaayaa meesha ka dhalanaya. laakiin aroos ceeb ma ahan, aroos dhib ma ahan, in la is arooso, in la ismehersado wax weyn ma ahan. wax laysku nacayana ma ahan ninkaan asaan ah gabadhaan asaan ah ma ahan, lacag dari ma aha, waxa weeyaan nin hebel baan kula rabnaa. marka aniga sida teeda kalena gabadha waxaan kula talin lahaa inay wacdo wiilka adeerkeedii dhalay ee jooga wadamada shisheeye, inay la hadasho, ay ku tiraahdo saaxiib aniga kuma rabo, ha isku soo khasaarin meeshan, aniga kuma rabo, walaashaad baan ahay, walaashaadii dhibka maaragtay uma quuraysid, dhib ha ii quurin, waa dhibanahay, waa rafaadsanahay, dartaadaan ugu jira dhibaatadan, walaalow iska kay saamax iyo cafi oo maaragtay wadadaas ii fur dheh, la hadal isaga. wiilkana waxaan dhihi lahaa isagana kan yurubta jooga ee gabadhan lala rabo, waxaan dhihi lahaa fadlan guri hada duminin. guri in laguu soo dumiyey, jaceyl laguu soo burburiyey, adiga laguu soo wareejiyey, gurigaaga kuma dhismaayo, gurina kuma helaysid. marka waxaan dhihi lahaa adigana maaragtay ka tanaasul, gabar yahay adigana wiilka la hadal, wiil yahow adigana isku day in aad adkaysato, jaceylkaagii aad ka miri dhaliso. bal idinkana asxaabta ina daawanayso waxaan idin leeyahay jawaabta iyo maaragtay sheekada waad aragteen iyo siday u dhacayso. bal adoo oo fikir saliim ah siinaya gabadhan iyo wiilkan iyo wiilka kale, maxaa fikiraha siin lahayd? gaar ahaan gabadhan
ayaa codsiga noo soo dirtay. maxaa codsiga aad u diri lahayd ay tahay? fadlan qaybta commentiga kusoo qor adoo mahadsan fikirkaagii iyo weliba talada aad u jeedin lahayd dadkan adoo mahadsan. haddii aad hayso sheekooyin ama maaragtay dhacdooyin jaceyl ah ama dhacdooyin kaleba aad hayso aadna rabto inaad nala soo wadaagto inaan halkan aan kusoo bandhigno, fadlan waxaan halkan kuugu soo qori doonaa maxaa la yidhaahdaa instagramkeygii iyo weliba facebookgeygii iyo lambarkeyga whatsappka ayaan halkan kuugu soo qorayaa. fadlan isagana igala soo xiriira, halkaana fariimaha iigu soo dira. especially waxaad fariimaha iigu soo diri doontiin aan rabaa instagramka. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.